qaabkii uu hadlay ayaanu kaga hadlaynaa inaanu taageero ku siino insha Allah waxa weeye annagu waxaanu nahay madax dhaqameedkuna waxa uu u xil saaran yahay kolka ugu horeysa nabadgelyada la ilaaliyo oo ta Soomaaliland ay ku nabad iyo caanabo maasha marka yaan dhaafine dadkan madasha isugu yimid dhammaan saxaafadda iyo salaadiinta iyo dhalinyarada iyo cuqaasha iyo dhammaan dadka isugu yimid halkan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan ka hanfafayo markaa salaanta waan ku celinayaa salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa waxaanaanu idinku nimid sidaan markii horeba u sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii dhaweyto shirkii uu qabtay sidii uu afaashi uu ka bixiyay iyo sidii uu go'aan qaatay ayaan ka hadlaynaa waanu ku taageeraynaa insha Allah waxa weeye madaxweynuhu waxa weeyaan madaxweynihii dalka Soomaaliland siyaasadda iyo dhaqankuna Soomaaliland way isku tiirsan yihiin oo ma kala maarmaan oo annaguna dhaqankaanu hagnaa iyo populationka dawladuna xukuumaduna waxay hagaysaa maamulka dalka gudaha iyo dibadda insha Allah Soomaalida waxa ku maamulada indho way isku hurdaanay ma kala hurdaano madax dhaqameedka iyo madax siyaasadeedku way isagayaan sida Soomaaliland sharcigeeduba uu dhigayo insha Allah madaxweynuhu waxa la yiri waxa muddo socotay iyadoo waqtigii loo kordhiyay 2 sanadood muddada oo imika ay muddo ka soo wareegtay muddada ay kororsiimadu ay jirtay waxa lagu murmaayay madaxweynuhu waa musharax iyo musharax maaha ayaa lagu murmay runtii musharax mayhi musharax buu maalintii dhaweytay ka cadeeyay waa waxyaala aan hadalaan madaxda Afrika aan lagu maqal weey inay kursiga jeclaato oo ay khalkhal geliso dalka oo qaxoonti iyo dhibaato badan ay ka dhacdaaba Afrika u caada maalintii doorashadii uu ku helay xilka waxa dadku isla dhexmarayay sidii uu ku wareejiyay daahiriya ee uu ugu wareejiyay Axmed Maxamed Siiraanyo sidii ugu wareejiyay dadku aad u mateeranay Soomaaliland iyadoo u soo bislaanaysa siyaasadda ayaa wuxuu maalintii dhaweyto uu isaguna ka sii daray wanaagga Soomaaliland isagoo tixgelinaya dalka dhismihiisa oo sii tababaraya kuwa dalka soo socda insha Allah oo magaciisa sii rogaynaya wuxuu madaxweynuhu yidhi isagoo xilkii haya buu yidhi musharax meeyi waa mas'ala aad u cajaayib weey doorashada dambe ee soo socda musharax umeeyi anigoo xaq u leh buu yidhi mar labaad inaan isu soo taago waxaanu aad ugu taageeraynaa oo tub cajaayib leh oo tii daahiriyaale uu wareejinayay ka sii qiimo badan oo ay tusaale u tahay Afrika dhamaanteed waxaanu ku taageeraynaa go'aanka tubta Afrika oo dhammi kaga dayanayso taageerada uu bixinayay caaqilku oo shir jaraa'idkan halkan lagu qabtay aan ugu talagalnay inaanu ku taageerno kuna hambalyeeyno madaxweynuhu tallaabada qaaliga ah ee uu qaaday iyo siduu wasiiradii kaambeega ahaa ee sida waddanka foodada uga daadigay mar qura waxaan taa u arkaa anigu inay tahay tsunami ilaahay naga bixiyey madaxweynuhuna uu si fiican uga gaashaan qaatay uu si wanaagsanna uu soo buuxiyay kaalmihii
ay dhulka dhigeen daqiiqaday ummadda u hayeen waxa weeye madaxweynuhu siduu sheegay caaqilku isaga oo taageero leh oo beeluhu kuwa u wada ballan qaadeen inay dooranayaan cidina aanay la tirtamayn lagu siiyey madaxweynuhu uu taa haysto ayuu haddana maanta ayuu ka fadhiistay waxa weeye waa shay qaali ah waa shay lagu daydo waa shay tilmaan iyo taariikh leh laakiin madaxweyne waxa weeye dee meel ka sii qaalisamad markaa xaaratay halkaad fadhiday markii hore oday duq soomaaliyeed somalilaana oo qaali ah ayaad xaaratay inaad soo fadhiisato oo kursigii labaad kursigaa u dhigmeeyey kuna soo fadhiisatay waan kugu hambalyaynaynaa aad baan anu kugu hambalyaynaynaa sidaa dalka nabadgelyada iyo amniga wanaagga sida sharafta leh eed uga gaashaan qaatay xilkii mar qura dhulka laguu dhigay halka aad iska taagtay maanta haddana doorashadaa dambe nabadsi qaaliya dhammaan nin hadalka badiyena mu odhan nin yareeyena kamuu kala tegini horta waxa weeye taasaan kugu hambalyaynaynaa shir jaraadkina loo qabtay waxaananu leenahay kuwa dambana madaxda raxmaan raxiim khayrka ilaahu nugus sida diibaanta la ilaahu nugus waxaan ka hadlayaa oo keliya madaxweynaha waa taageerina madaxweynaha waanu taageerina cimri dheer iyo caafimaad qab ilaahay ugu baryana cimri dheer iyo caafimaad qab ayaanu ilaahay u baryana si aan la arag oo la maqal buu yeelo waxaan leenahay cidda uu taageeray madaxweynuhu inuu taageerayna waanu taageernay hadduu muuse biixi yahay hadduu yahay war muxuuha ka kale hadduu saydic yahay kuwa uu hambaliyeeyaanu hambaliyeyna uu taageeray cidduu habaarayna waanu habaarnay af soomaaliga ma garanaysaa cidduu waxaanu maanta halkan isugu nimaanu jecelahay inaanu ka hadalno arrintii maalmihii u dambaysay dadka ka dhacday arrimihii muhiimka ahaa waxaa dhameeyey odayaasha iyo cuqaasha iga horraysay anuu hal qodob quraataan ka hadlayaa qodobkan ka hadlayaa waxaa weeye doorashada soo socotay ee madaxtooyada waa doorasho ka duwan ilamaa iyo 19 doorashooyinkii dalka ka dhacayay ee ilaa cabdiraxmaan tuur lagu doortay ee cigaal labada jeer lagu doortay ee daahir riyaaliye sidaaya lagu doortay waa doorasho ka duwan qodob bay kaga duwan tahay doorashada soo socota waxay kaga duwan tahay saddex murashax oo midkoodna kursiga ku fadhiyeen oo intuba xilka dibadda ka ah ayaa ku tartamaya madaxweynaha ku wareejinayaana waa madaxweyne aan tartamaynin qodobka ay kaga duwan tahay muhiimka ah ee maanta Soomaaliland sunno u noqday ee halka ka sii dhaqmi doona waxa weeye in murashax tagada madaxweynaha ku fadhiya aanu kursiga u tartamaynin doorasho kasta oo dhacda madaxweynuhu isagoo kursiga ku fadhiya ayuu murashaxiinta kale la tartamayay waxaana ka iman jiray hantidii dawladdu isticmaalaa awoodii dawladdu isticmaalaa wasiiradii dawladdu isticmaalaa maanta saddexdana ku tartamaya saddexdu xukuumadda dibadda ka yihiin saddexda mid xil qaran hayaa ma jiro doorashada soo socota waxay kaga duwan tahay qodobkaas oo ah wax in badan caalamka oo salaan aan mahad naq ugu gaarsiinayna anigoo ah Cumar Maxamed Yaasiin madaxweynaha xilka imika ka degaya waxa kale oo aan aad u salaamayaa musharaxiintii way ka baydhbaydheen qolooyinka kale iga horreeyey mushaahid muuse bixikaan ayaan isagana salaamay oo madaxweynuhu u hambalyeeyey waxaan hadalkayga ku dheeraynayaa madaxweynuhu markii uu goostay inuu muuse bixi kaahin uu hawsha muuse bixi cabdi uu u magacaabo dhiig buu ka qaaday dhiig ayuu ka qaaday marka waan u hambalyeynayaa madaxda kale iyo musharaxiinta waa u hambalyeynayaa waxaan ku wareeg bismillaahi raxmaani raxiim salaadiinta cuqaasha dhalinyarada bacda saxaafadda marka hore waxaan isku haabay salaata islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
salaanka bacdi magacaygu waa caaqil Saciid Cabdi Jaamac shir jaraa'idkan maanta aan goobtan ka qabanayna waxa weeye taageerano shirkii shanaad ee ka dhacay xisbiga kulmiye ee lagu doortay labada musharax taageerna weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland tan iyada uu sameeyay waxa weeyaan mid aan la arag oo la maqal weeye tan marka maanta uu sameeyay mid aan la arag oo la maqal weeye taad loogu taageeray waxa weeye isagoo kursigii fadhiya 5 sano dambana musharax oo diyaar u ah wax ka horjooga jirin inuu ayar ka tanaasulo yiri waxaan uga tanaasulay jiirka kale ee diyaarka ah ee taagan baan uga tanaasulay taasi waa mid iyada waa gobonnimo uu qaatay weeye madaxweynuhu isagoo marka hore wax qabad far badan loo hayay oo aad u qabtay dowrkii sano u hayay madaxweynimada hayay kursiga u hayay isagoo wax badan qabtay tanna waa mid labaad oo si raacsaday taasna waa taageer xoog leh ayaan ugu hambaliyayna weey ta kale waxaan hambaliyayna labada musharax annagoo ah beelweyntii Arab oo fadhida halkan oo cid u maqnayn maanta ayaanu ka hambaliyay buuxda aan siinana labada musharaxna aan siinana hambaliye xoog leh hambaliye maan loo Muuse Biixi Axmed Maxamuud Siilaanyo madaxweynaha Soomaaliland Nelson Mandela geeska Afrikada bari ayaan hambaliyaynayaa marka koobaad una ducaynaya waxaan ugu ducaynayaa 99 magaca Ilaahay ayaan ugu ducaynayaa asmaa'ul husnaa waxa aan leeyahay inta ka dambaysana waxa ka bartaan sidaa uu yeelay hayala malle waxaan hambaliyaynayaa oo u ducaynayaa in isagana Ilaahay ku astro halkan musharaxnimo ee lagu wareejiyay Muuse Biixi Cabdi musharax madaxweynaha xisbiga kulmiye aad baan isagana ugu hambaliyaynayaa waxaanu leenahay mudane waanu ku garab taaganay waanaanu kula shaqaynaynaa waana ku dooranaynaa dhinacayaga isku haleebaar ku leenahay waxaan raacinayaa oo aan oran lahaa nasiib baynu leenahay haddaynu reer Somaliland nahay laakiin tala badan ma lihin 24 wasiir 25 wasiir oo dawladdu iyo 25 wasiir ku-xigeen 12 wasiir iyo 12 wasiir ku-xigeen baa markuu rays casilay waxay ugu tala galeen in lagu kala yaaco waxa aan u mahadnaqaynaa madaxweyne Maxamed Axmed Siilaanyo oo si adag gaashaanka ugu daruuray qaran duminta ummadda Ilaahay dadku arkaan waar ku hambalyeynaa taana waxaan leenahay madaxweynaha waxaad halkan ka qaadatay halkan waxaad ka qaadatay oo kaga tagtay magac Soomaaliland inteeda kalena waxaan leeyahay madaxweynahaas halka magacu kaga tagay waa aragtaan waxa uu inaga mudan yahay iyo oo mahadnaqaya ilaahayna waxaan ku jiray xilli abaara oo adag oo aynu yaabanahay yaynu ku jir ilaahay wuxuuna siiyay inuu gargaaray raxmadiisii uu inoo shubay kollay meelaha aanay wada gaarin ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay gaarsiiyo mid degdeg ah taasi waxa weeyaan rabbiga oo u mahadnaqnay waxa ay raaca ugaasho iyo waxgaradku sida ay ku hadleen waxa weeyaan waa hambaliyo ugaasha dhameeyay wuxuu mudan yahay madaxweynuhu waxaan ugu darayaa duco oo ducaynayaan wuxuu soo galay waa la ogyahay wuxuu qabanayana wuu ogyahay wuxuu imaka sameeyayna waa la ogyahay
waxaan ugu ducaynayaa ilaahay inuu ka nabadgeliyo cadaabta ilaahay inuu ka nabadgeliyo cisi buu ku noolaanayaa intuu nool yahayna cisi iyo sharaf inuu ku noolaado madaxweyne marka ay intani ka dhammaanto maxaa idhaha sanadkiiyo waxoogaago dalkaaga waxaad ku maraysaa bakoorada adigoo sita yaad meeshii walbaad ku maraysaa haddii aad nooshay naftaadu intay gaadho adigoo bakoora sita adigoo intaad xilka haysay waayo sababtoo cid intaad xilka haysay cidna godob ka geli taasi waxa weeyaan waa ilaahay lagu mahadiyaa waana waxa weeyaan talo iyo caqli iyo aragti waa la barbartaagnaanaysa insha allahu tacaala inta noloshaada ilaahay ku samey wala aragnimadaadii iyo ninnimadaadii iyo sharaftaadii kii fuula ee caawa ilaahay u qadaro xusbiyada ku tartamaya inaad la barbartaagnaato taladaadii iyo waxgaradkaaga iyo waxgarashadaada iyo siyaasaddaadii taasina waa dardaaran weeye tan iyo caawa nimanka sabix cabdi saylici xusbiga labada imaka kulmiye doorashadii ay ku guulaystay labadana waa hambalyeynaya waana u ducaynayna aad iyo aadna waxaanu leenahay muuse bix anasna ku dardaarayaa niman caawa weyn oo odayaala oo nimankii caawa xusbiga kulmiye kow rukunka u ahaa ama ka mid ahaa ee odayaasha ahaa xogaa khilaafa idinsoo dhex galay khilaafkaasi waxaan odayada ku dardaari lahaa ilmadeerayaal iyo walaalayaal raganimadiinnii caawa xusbiga halkiinniina ka wadaan oo cadho yar iyo waxoogaabaa si la yidhi aanay idinkaga fogaan aydan la fogaan ku soo noqdaanu lahaa xusbigiinni ku soo noqdo nin walow waxa weeyaan safiir haddaad baarlamaanka ka soo noqotay dalka haddaad caawa wasiir ka soo noqotay haddii caawa maamul kale aad haysay waxa weeyaan waa shaqadii aad haysay iyo meeshaad sharafta ku lahayd waa xusbiga kulmiye weeye taa waxa weeyaan iyay bahashu idinla fogaan ku soo noqdo xusbigiinni waa tala bixin weeye sabixi iyo saylicina waxaan leedahay sidaa raganimada sidaa ugu wanaagsan ee sharaftu ay mudan tahay ayna ku soo dhowaysaan oo kaga daba tagtaan oo aydan kaga hadhin nimankaa odayaasha ee caawa iminka waxoogaaga cadhade idinkaga tegay kuwaana waxaan aad idinku dardaaraya waa ka daba taga wax kastay idinku qaadanayso waa ina niman laga maarmayo maaha waa nimankii rukunka u ahaa xusbiga yay ka mid yihiin ka daba tago nimanka xooga cadhaada yar fogaatay soo celiya nimanka hadday dee diidaana ayagaa og saasaan igana kula talin lahaa